السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي سلامي دمان ولا ميل walba joogtaan waa aniga hawlaashay Sumay Maxmed YouTube channel ka daawanaysidna waa Sumay Daacad kusoo dhawaada ku cusub tahay subscribe saar markale isku soo noqdo wanaagsan muuqaalkan caawa waxaan uga hadli doonaa dhacdadii dil ee ka dhacday Idaho College ee Moscow 13 November ee sanadka hadda naga sii dhamaaday dilkaas oo loo geystay 4 arday oo isla jaamacadda ka tirsaneed dilalkaas oo isbuucii u dambeeyay aad loo hadalhayay oo dhammaan baraha bulshada inta badan qabsaday laga yaabo adiga xitaa inaad aragtay si kasta ahaataba ku soo dhawow muuqaalkeena caawa Okay, afartan arday ee lagu dilay isla jaamacadaasi waxay kala ahaayeen 3 gabdhood iyo hal wiil. Gabadhan oo lagu magacaabo Carrie Gongalface iyo gabadhan kale oo lagu magacaabo Anna Cornadle iyo gabadhan kale oo lagu magacaabo Madison Morgan. Sidoo kale wiilkan oo lagu magacaabo isna Eden Chapin. Haddaba afartan arday waxay wada degnaayeen hal qol oo isla jaamacadda ka tirsan. Xilliga dilka dhacay waa inta u dhaxaysay 10 saac ilaa 10 saac 25 daqiiqo oo subaxnimo. inkan aad arkaysaana waa eedeysanaha ku eedeysan inuu geystay dilka afartaasi arday magaciisana waa Brian Berger waana 28 jir oo haysta PhD bartayna cilmiga shareecada iyo dambi baarista iyo waliba cadaaladda kana baxay oo ka qalin jibiyay jaamacad ku taala isla gobolkiisa Washington lamana ogaan lahayn cidda dilkani ka dambeysay ama xitaa soo qabshadeeda aad ayaa looga dhibtoon lahaa haday ahaan lahayn gabar degnayd qolka dilka ka dhacay qolka ku dheganay gabadhaasi ayaa aragtay xilliga uu galay iyo xilliga uu ka soo baxayayba qof xiran dhar madow sidoo kalena maskar wato oo dhanka dambe qolka soo maraya shoogii markaas ay qaaday meesha istaagtay ayaa qolkeeda hoos ka soo xiratay waan arkayay dhahday wax walba oo meesha ka dhacayay oo daaqada ayaan ka daawanayay gabar kamid ah gabdhaha ayaa arkayay bay tiri oo qaybta kore ee guriga saaran ayadii iyo eygeeda way maqashay tiri albaabka markii la soo furay haddana waxay istiri waa isla ardaydii qolka kula degneed haddana mar kale markay albaabka soo xiratay dhawaaqay iyo qayladii ay haddana sii maqashay kadib ay albaabka soo furtay iyadana waa lagu afariyay way arkaysay wax walba oo dhacayay ilaa dilaagu uu banaanka uga soo baxo kaasi daran gabadhii waxba ma aysan sheegin xilli ku dhow duhuradii ayaa booliiska Moscow la soo wacay waxaana soo wacay qof dhibane ah oo ka badbaaday dilka oo na saarnay dabaqa qaybtiisa kore dabcan markii la dhaawacay ayuu meesha u carray oo maleynaya waxay ahaataba markaas ayaa booliiska qofkaasi soo wacay isagoona gargaar ka dalbanay iyo badbaado markay imaadeenna waxaa la arkay 4 arday oo meyd ah oo lagu dilay midi oo dhamaantoodana si xun u dhaawacmay saas ay tahayna waxay ahaayeen dad hurdada lagu weeraray kadib adiga waxa laga shakiyay qof kale oo ardayda ka tirsanay oo habeenkaasi xaflad ku maqnaaya la yiri ayaa laga shakiyay waa la soo qabtay kadib dabcan meesha markuu dil ka dhaco agagaarkaasi qofkii ka dhawaayay qofkii ugu dambeeyay oo lala kulmay qofkii la wacay dabcan dhamaantood waa la baaraya adii markii uu dambe la soo gaaray gabadhaasi ayaa tilmaantaasi bixisay waxay tiri qofkaas soo galay waxay ku tilmaantay inuu yahay qof dhirkiisa ay tilmaantay 5 ilaa 10 feet inta u dhaxayso caata ayuuna ahaa adii wax badan ay ka tilmaantay tilmaantaasi oo in badan la tixraacayay ayaa lagu soo qabtay qofkan oo sii baxay oo u laabtay magaaladiisa oo ku taalo Washington jaamacadiisana meesha ay ku taalay waalidiintiis meesha degnaayeen isagana waa qof meesha ka soo tagay gaariga uu soo qaatay iyo adii wax badan la sii tixraacay waxa la isku soo qabtay muuqaalo fara badan oo CCTV-yada wadooyinka ku xiran ay duubeen hadaba ninkan ilaa hadda lama garanin sababta uu u dilay sababta uu u dilay ardaydani ilaa hadda lama garanin maxkamadda ayaa la soo saaray xilliga uu dilka dhacay iyo xilliga ninkani la soo qabtay dabcan farqi badan ayaa u dhaxeeyo xilliga dilka dhacay waa 13 November marka la soo qabtayna waa 15 December xilliga la maxkamadeynayna waa 27 December waana fahmi kartaa farqiga u dhaxeeya waxyaabo badan ayaa la isku soo qabtay oo waliba kamid ahayd in gaariga uu watay mar gaari kale uu dhacay mise target gaarigiisa aan lahayn uu ku soo dhigsaday lagu qabtay oo isla markaasba ay isku dhawaayeen goobigaasi laga qoray saldhiga looga qoray
iyo xilliga looga yacni shakinayo dilkan aad ay isugu dhawaayeen kaamirooyinka wadooyinka ku xiran ay maaragtay wax badan ay dadku u fududeeyeen xitaa waxaa laga arkay in isla habeenkii dhexdiisa oo dilka dhici rabay 4 mar oo kale guriga galay ka soo baxay kale intaas in dadka kala seexdaan iyo in kale yacni wuxuu sugayay yacni ma fahmi kari haddaba baaritaankii la sameeyay ninkan markii laga daba tagay waxaa islahaaday DNA-ga dadkaasi laga qaaday iyo mindada gurigooda laga helay midadii uu la baxay uu la safray ee wuxuu ku riday yacni haanta qashinka adiga oo meelaha la dhigo oo gurigooda agtiisa taale iyo ku riday ilaa intaas bay ku jirtay markii la soo bixiyay midadii galka laga saaray dheecaanadaas iyo dheecaanka midada way islahaadeen dabcan shakigana uu ku sii dhaboobay marka waan arkaynaa wixii ka soo baxo xitaa sidoo kale waxaa la sheegay in tababar shaqo uu u socday maaragtay uu ugu shaqo galayo dowladda maadaama uu yahay qof soo bartay sharciga iyo maaragtay dambi baarista iyo sidoo kale arrimaha cadaaladda marka ma garan karo qof sharciga bartay oo la yiri haddana maaragtay falkan sidoo u geysan karo yacni 4 qofood dhan hal mar u wada dili karo kale waan arkaynaa wixii ka soo baxo hadaba markii la soo taagay ninkan waxaa la weydiiyay yacni haday jirtay cid kale oo maaragtay kula jirtay ama kula shuqul lahayd dilkan waa la ula jiray iyo la iguma la jirin midba ma dhihinba uu iska aamusnaay kadib markii laga sii waday maxkamadda hooyadiisa kaliya ayuu ku dhahay waa ku jeclahay bes haddana lama ogaanin sababta uu u dilay iyo yacni xaqiiqda ka dambaysa inay dad kale kula jireen in kale maxkamaddana waxay soo saartay go'aan ah in booliiska ama yacni cid ka tirsan dambi baarista aanay wax maaragtay warbixin ah la wadaagi doonin saxaafadda iyo shacabka toona ilaa laga soo saaro go'aanka saxda ah arrintaasi oo maaragtay lagu saleeyay in ay haddii war badan aan sii wadwadno ama waxyaabo badan aan sii sheegno in dambiilayaasha ay wax badan u fududaan karaan sameyn karaanna meermeerin fara badan marka adiga faahfaahin dheeraad ah maaragtay ilaa hadda lagama soo saarin kulay wixii laga dhaho iyo sababtu u dilay haday soo baxdo maxkamadda oo natiijada ah iyo wixii lagu xukumo haday macquul noqoto oo maaragtay muhiim ila noqoto waa idin soo gudbin doonaa insha Allah si kasta aadaba muuqaalkan yar ayaan idinku talgalay inaan idin la wadaago caawa waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay fadlan helooyin muuqaalka inaad like saarto aad si share garayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bye bye